kulanti wacan daawadayaal qodobada wararka warbaahinta isha wararka idin heeso waxa u dooran Puntland oo goob fagaaraha ku burburisay qamrig laga keenay Itoobiya qasaaraha ka dhashay dagaal ka dhacay gobolka Sool oo kordhay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug taliska ciidanka xoogga dalka oo sheegay in la qabtay qaraxyo iyo dadkii waday gudoomiyaha cusub ee degmada Xamarjab oo xilka la wareegay madaxweynaha Puntland oo qaabilay wakiilka cusub ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya booliiska oo faahfaahiyay rag lagu toogtay Muqdisho iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka oo shir ka furay Muqdisho waa ka dawadayaal intaas waxay qaar ka tirsan qodobada wararka warbaahinta isha wararka idin heeso kuwada ugu dar corona haddii aad ka mid tahay saaxiibadeen cusub ee barteena YouTube-ka fadlan subscribe dheh oo ku soo biir saaxiibadaada share u dheh like sar gambaleelka guji si wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka markaan soo galnay barteena YouTube-ka aad u heshid markaan daawade ku soo dhow warkii oo faahfaahsan dowlad goboleedka Puntland ayaa goob fagaara ah ku burburiyay qamri laga keenay dalka Itoobiya ciidamada booliiska degmada Galdogob ayaa goob fagaara ah waxa ay ku burburiyeen dhalooyin qamri ah oo ay gacanta ku dhigeen xilli laga keenay gudaha dalka Itoobiya waxaana goobta lagu burburinayay ku sugnaa mas'uuliyiinta degmada iyo taliska ciidamada booliiska Puntland qamrigan ayaa dhawaanahan yaalay saldhigga dhexe ee ciidanka booliiska degmada Galdogob waxaana ugu dambeyn la geeyay goob fagaara ah isla markaana lagu burburiyay si aan deegaanada kale ee magaalada loogu ibgeen taliyaha ciidanka booliiska degmada Galdogob ee Puntland Salaad Cabdi Gombe ayaa sheegay in qamrigan ay qabteen 28kii bishan isla markaana ay ka soo heleen guryo burbursan oo waa hore laga guuray waxaanu sheegay in koox doonaysay inay ka ganacsadaan ay halkaas ku qariyeen waxa uu hadalkiisa intaa ku daray inaysan jirin dad ay ku qabteen qamrigaas yeeshee dadka shacabka ah ee magaalada Galdogob ay ku soo wargeliyeen waxaana uu dadka ka dalbaday inay ciidamada ammaanka kala shaqeeyaan dadka ay ku arkeen qamriga iyo waxyaabaha ammaanka dooriya qasaaraha ka dhashay dagaal ka dhacay gobolka Sanaag ayaa la sheegayaa inay kordhay warar dheeraad ah ayaa ka soo baxay dagaal geystay qasaare isugu jiray dhimasho dhaawac oo laba maleeshiyo beeleed ku dhex maray deegaanka hoostiga degmada Ceel Afweyne ee gobolka Sanaag dagaalka ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka Duud Caraale oo ku yaala galbeedka gobolka Sanaag waxaana kordhay qasaaraha dhimasho mid ka dhaawac ee ka dhashay dagaalkaas inta la xaqiijiyay 9 ruux ayaa dagaalka ku geeriyootay 12 kale waxa la sheegay inay ku dhaawacmeen kuwaas oo dhamaantood ahaa maleeshiyaadka dagaalamay sida ay sheegeen dadka deegaanka dagaalka uu ka dhacay degmada Ceel Afweyne ee gobolka Sanaag iyo tuulooyinka hoostiga ayaa waxa ku soo laabtay dagaalka dhex maraya beelaha walaalaha ah ee wada dega gobolka Sanaag waxana maamulka Somaliland ay dhowr jeer isku dayeen inay xal ka gaaraan balse ay suurtagal weysay joojinta dagaal beeleeda dhex maraya maleeshiya beeleedka walaalaha ah ee ku dagaalamaya deegaanada ka tirsan gobolka Sanaag ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre iyo wafdi ballaaran oo isugu jira xildhibaano wasiiro taliyaasha ciidamada ayaa maanta gaaray magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Kheyre iyo wafdi hogaaminayo oo safar dhulka uga soo baxay magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug wafdiga ra'iisul wasaaraha uu hogaaminayo ayaa waxa magaalada Gaalkacyo ku soo dhaweeyay xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya mas'uuliyiin ka tirsan Galmudug iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ra'iisul wasaaraha ayaa intii uu ku sugan yahay magaalada Gaalkacyo waxa uu kulamo la qaadan doonaa qaybaha kala duwan ee bulshada isagoo kala hadli doono hanaanka lagu dhisayo Galmudug oo mideysan xukuumadda Soomaaliya ayaa dadaal xoogan ugu jirta sidii dib u heshiisiin dhab ah loo dhaxdhigi lahaa bulshada ku nool deegaanada dowlad goboleedka Galmudug taliska ciidanka xoogga dalka ayaa sheegay in la qabtay qaraxyo iyo dadkii waday ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa howlgal qorsheysan waxa ay ka fuliyeen magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose waxaana la sheegay inay ku soo qabteen 4 xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab xubnahan ayaa saraakiisha howlgalka hogaaminaysay waxay sheegeen in xilliga la qabanayay ay wadeen qarax ay ku soo dhaxqariyeen jawaan ay ku jirtay galay sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda ee ku sugan degmada Marko ee gobolka Shabeellaha Hoose saraakiisha waxay sheegeen in xubnaha la qabtay ay ku jiraan laba dumar ah isla markaana lagu hayo baaritaano dheeraad ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee ku sugan gobolka Shabeellaha Hoose ayaa muddooyinkii dambe aad u xoojiyay howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab iyadoo toddobaadyo ka hor
warar soo baxay ay sheegayeen in ciidamada amniga ay qabteen gaari dameer lagu soo raray waxyaabaha qarxa. Gudoomiyaha cusub ee degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir ayaa xilka la wareegay. Gudoomiyihii hore ee degmada Xamar Jajab Ismaaciil Mukhtaar Cumar ayaa xilka ku wareejiyay Guhaad Sheekh Xasan Cali oo uu dhawaan soo magacaabay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho. munaasabada xil wareejinta oo ka dhacday xarunta degmada Xamar Jajab ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka socotay gobolka Banaadir iyo qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir. Gudoomiyihii hore ee degmada Xamar Jajab Ismaaciil Mukhtaar Cumar ayaa sheegay in muddadii uu ahaa gudoomiyaha degmada uu wax badan ka qabtay howlihii shaqo ee loo igmaday. Gudoomiyaha cusub ee degmada Xamar Jajab Guhaad Sheekh Xasan ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in maamulkiisa cusub ay horyaalaan shaqooyin culus oo u baahan in wax laga qabto isla markaana uu dhankiisa diyaar u yahay. waxa uu hadalkiisa intaa ku daray gudoomiyaha cusub in uu xooga saari doono wax u qabashada dadka qaba baahiyaha gaarka ah ee ku nool degmada uu gudoomiyaha ka yahay ee ah degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir. Gudoomiyaha cusub ee degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir Guhaad Sheekh Xasan ayaa horey waxa uu ahaa tiftiraha idaacadda ku hadasha afka gobolka Banaadir waxaana dowladda hoose uu ka shaqeynayay muddo 6 sano ah. Madaxweynaha Puntland ayaa qaabilay wakiilka cusub ee qaramada midoobay. Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dane ayaa madaxtooyada Garowe ku qaabilay wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Ambassador James Swan iyo wafdi uu hogaaminayo oo ay ka mid yihiin madaxa hay'adda OJA Justin Brady, madaxa WFP ee Soomaaliya Lauren Bokera iyo mas'uuliyiin kale. kulanka ay yeesheen madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dane iyo ergeyga qaramada midoobay ee Soomaaliya iyo wafdiga uu hogaaminayo waxaa looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin amniga, siyaasadda, horumarinta iyo gargaarka bini'aadanimo. ergeyga qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya Ambassador James Swan ayaa uga mahadceliyay madaxweynaha Puntland soo dhaweynta. waxa uu sheegay inay sii wadi doonaan wada shaqeynta mashaariicda qaramada midoobay ay ka fulinayso Puntland. Ambassador James Swan ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ayaa safarkiisa ugu horeeyay waxa uu ku tagay Puntland iyadoo la filayo in dhawaan uu tago deegaanada kale ee dowlad goboleedka dalka. Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka dalka ayaa shir ka furay magaalada Muqdisho. Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka xukuumadda Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa si rasmi ah waxa uu Muqdisho uga furay shirweynaha shanaad ee dib u eegista waxbarashada Soomaaliya. shirweynaha ayaa waxa uu socon doonaa muddo 2 cisho ah waxaana diiradda lagu saarayaa waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee u qabsoomay wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya. shirka sidoo kale waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya, wasiir ku-xigeenada, xubno ka socda deeq-bixiyaasha, safiirada caalamka qaarkood iyo mas'uuliyiin kale. waxaana inta uu socday lagu soo bandhigi doonaa qorshayaal fara badan oo ku saabsan dhanka waxbarashada Soomaaliya. ugu dambeyntii booliiska Soomaaliya ayaa faahfaahiyay rag lagu toogtay Muqdisho iyo qarax ka dhacay isla Muqdisho. taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa waxa faahfaahin ka bixiyeen qaraxii ka dhacay Muqdisho iyo ciidamada amniga oo isla Muqdisho ku toogtay 2 nin oo la sheegay inay ka tirsanayeen Al-Shabaab. taliska ku-xigeenka ciidanka booliiska Soomaaliya Sakiye Xuseen Axmed ayaa sheegtay in ciidamada ammaanka Soomaaliya ay ka warhayeen xogta qaraxii ka dhacay Muqdisho isla markaana ciidamada amniga ay fashiliyeen sida hadalku u dhigtay. taliska ku-xigeenka ciidanka booliiska Soomaaliya Sakiye Xuseen Axmed ayaa ka hadashay ciidamada ammaanka oo 2 ruux ku toogtay Muqdisho kadib markii ay weerareen bar control oo ciidamada dowladda ay ku leeyihiin isgoyska Saybiano ee degmada Hodan ee gobolka Banaadir. waxay sheegtay in ciidamada 2 nin ay toogteen ay ahaayeen kuwo hubeysan oo doonayay inay si awood ah ku soo gudbaan bar control oo ciidanka ku leeyihiin Saybiano iyadoo u mahadcelisay ciidamada booliiska ee ku sugnaa barta control. xaaladda caasimadda ayaa ka duwaneed maalmihii la soo dhaafay hase yeeshee mas'uuliyadda weeraradaas waxaa sheegatay kooxda Al-Shabaab. warkii oo idinkaga imaanayay warbaahinta Isha Wararka waa naga inta.